بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أركان وجبهة حرينتا صوماليا Somali National Liberation Front SNLF waxaan baa u jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed inay dhageysanaya kacdoonka inaga shacabka ma istaagayo ilaa cadaaladda gacanteena aan kula helna dalkeena aan soo ceshino walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa Soomaalida Ethiopia ee loo yaqaan ogaadeeya markii kililka ay sameysay wayaanaha wadadii ay marisay bay marinaysaa Soomaaliya walaalayaal say maalmo midoogu dhiibaysay markii magaalada xarunta ee la yiraahdo goday ay ka qaadayeen ninka ugu dambeeyay dhiig ku fahmayaan ayay ugaaska qabiilada meesha dega ay ku dhaheen idinkaaba xukuumad dadka kala waa dulsaar isaga u dhiibeen isagana waxa ay noo geey jigjiga markuu geeyayna waxa dhacday walaalayaal inay isagiina afgambiyeen waxay ka qaadeen 11 madaxweyne in ka badan ilaa ay ka helaan midkii ay doonayeen in nasabad iyo shakhsi iyo diin aan shaqo ku lahayn ay shacabkiisa walaalkii hooyadii aabihii qowracayo sida ayay ku hanteen maanta walaalayaal wadadii ayaan ku soconaa halalka baarlamaanka halalka taageerayo walaalayaal waxaad ku xasuusnaataan inaan idin xasuusinayo inaan marayno wadada wallahi waa maraynaa maanta laakiin waa 4 iyo 5 iyo 10 waa 400 isku darkooda maanta ayaan gacan ku qabsan karnaa maanta ayaan iska celin karnaa maanta ayaan soo ceshan karnaa qadiyadii Soomaalinimadii iyo wadaniyadii haday maanta ina saagto waxay tagaysaa halka hadii ay tagtana waa taangi dhagax tuur Palestine oo kale walaalayaal wadada aan ku socono waa xaqiiqatan wataas waxaan rabaa inaan su'aal idin weydiiyo ninkii dhiiranaa ee xaniyaha lahaa ee farnaajo la dhahayay maxaa u qooyay baalasha xaqiiqda aniga idin sheegayo walaalayaal waxa dhacayso markaan meesha ay galaan 3 ayaa hayo number 1 waa sixirka Ethiopia ee ku duugan horay aan u sheegay madaxtooyada number 2 na caalamka dhan surdoonkiisiiba halka fadhiyo oo Ethiopia la wada gaalaya islaamba u gurageynaya Soomaaliya runtaana loo sheegay al-shabaab anaga xukuno xaqiiqda wata ma tagina soo wadanaysanaysa ayaa la dhahayaa kadib waxa dhacayso inuu ninkii iska daraysto waxaan idin sheegayaa malihin marka nin xataa arag oo madaxweyne oo xilka laga taagay oo runta u sheegaya shacabka u dhahayo wadalkan waa la haystaa badbaasada haduu xilka taga xataa waa laga saxiixay walow khaarijin baa la dhihi wuu cabsanaya laba nin ayaa soo martay Soomaaliya oo dadka runta u sheegtay ninkii shacabka sida farnaajo ay taxnaa waa Cabdiqaasim maad ka maqasheen Xasan ma ka maqasheen Shariif ma ka maqasheen laakiin laba nin ayaa ka tagtay Generaal Hussein Aydiid maalinkuu dhaminayay jimcuu dhintay jimcihii uu dhintay wuxuu ku dardaarmay uu yiri sharcadu ayaan Soomaaliya la socda santaacadu iska ilaaliya jimcaheedii kale wallahi billahi gaday haysatay Ethiopia ninka la yiraahdo Cabdullaahi Yuusuf oo keenay axmaaro oo shacab laayay oo gumid axmaar jacayl ahaa 30 sano u xiraa nimankii sidaas ugu soo dhimanayay wadna xanuunka uu ka qaaday markii ay dheen xilka dhig ay arkeen inuusan isku haleynhayn axmaaro buugu ka qoray buugaasi ayuu ka qoray qofka axmaarada jacayl buuga ha akhriya Cabdullaahi Yuusuf arwakaasi nin kale madaxweyne ah oo Soomaali ah waa wadani Soomaaliya waxay u baahan tahay ninkaas oo kale farnaajo haduu wadani yahay markuu arkay xaaladda halka inay marayso waxay tay gabadha la dardaarantay oo tiri inagu soo celiye haduu soo istaago waxa loo baahan yahay ninka taga mabda wuxuu yahay nin dhaho shacabow qorigan qaadanaya dalkan waa la haystaa waana xoreynina isiyay shacabka haduu dhintana mabda buu ka tagaya iyo taariikh taala ah oo dalka haraysa oo aruutiisa iyo dadkiisa ay harsadaan iyo Soomaalida ma jiro walaalayaal kaasi wadani ma aha farnaajo haduu nin raga yahay hadaad dhageysanaysan Soomaaliya konton jeer baan idinku wacdinay dalkan waa la haystaa ima idin yeelayni bal warkaasi farnaajo intuu soo istaago ha idin dhaho wadani xataa inta laga qaado xilka ma dhihi karayo waa laga saxay barta lagu khaarij walaalayaal
ku quusta waa wadadii ugu dambeysay 7 sano idinku dhawaaqaya 8 sano idinku dhawaaqaya farmaajo ku qoys qaata walaalayaal waxaan idin sheegayaa waxaa jiro bahal jiir la yiraahdo jiirka markuu ku cunayo habeenkii aad jirto uu ku afuufaya si aad u dareemin waxaa jirto bahal jalaabata la yiraahdo oo malaayga hilibka loo galiyo lagu soo dago wallaahi kuwan ayaa ugu daran haddana haysto oo ku jilaabayo oo ku afuufaya sidii jiirkii oo maalin balfiiri xadaarada maanta taagana siyaasadda ra'iisul wasaarahan jilaabka ku wado ee meelaha marmarayo oo isku soo sawiraya farnaajahan militariga isku soo sawirayo oo ku qan tusayo inay wax ku qabanayaan walaal kuwaas oo xun kuway horeedo waxay ku may qabanayeen danahooday raacanayeen dalkana dambi khaas kamisi galeen ma aysan dhehaynin war shacabo qaad laakiinse waxay diidayeen inay dalka wax qabtaan oo tusayeen shacabka Soomaaliyeed laakiin kuwan waxa weeyo kuwa noo afuufayo noo qaboojinay hadii aad eegto waxa ay isku soo sawirayaan maalin walba xadaarada maanta taagan nimanka loo haysta qiyaano qaran miyaa haddii ay damiir leeyihiin sawirro u farmaajo maalin walba niisu isku sawir lahaayeen guriga isku xiri lahaayeen ilaahay baan ku dhaartay dadka cabsi weydiisan lahaayeen waa qadiyad xumada iyo dadna muxmada ka muuqato yaani nagu sirin walaalayaal sir waa naga dhamaaday qool nin qadiyadii iyo qarannimadii Soomaaliya iibiyay oo xabash urayo u dhiibay ma aqbalayno mana doonino namana hogaamin karaan namana tusi karaan wadada fiican waddanina isku ma keen sheegi karaan haddii xataa jannada adduunka Soomaaliya ay ka burqiyaan waxa weeye walaalayaal waa qadiyad di Soomaaliyeed iyo qarnimadii Soomaaliyeed ayay duugay wax ka wanaagsan kuma soo wadaan waxaan leeyahay marka inta shacabka Soomaaliyeed ay dhigisanaya waxaan ku xoreynaynaa af waxaan ku xoreynaynaa mudaharaad Soomaaliya xornimo u baahan tahay u istaaga kun soo biira jabada xoreynta Soomaaliya Somali National Liberation Front waxaan rajaynayaa haddii taa ay socon weyda xataa ciidanka qalabka sidaan amrayna qof walbana meesha lagu tooganaya aduu ilaahay raad wassalaamu calaykum